jiradan taguud u shuurayo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihii sharwado shib naga dhahaa shekada socotaanu sheekunahe kaasheexa wixiina sharaftilaye kaasheexa wixiina sharaftilaye shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeeculaahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeeculaahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg jiradan taguud u shuurayo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihii sharwado shib naga dhahaa shekada socotaanu sheekunahe kaasheexa wixiina sharaftilaye kaasheexa wixiina sharaftilaye shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socotaa dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeeculaahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg waxaan galabta iskugu nimid kulankan barakaysan kulankan ama shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan wada tashi dhalinyarada maxamed ibraahim ama reer maxamuud shirka ciwaankiisu wakaa muddo badan baan qabanqaawadiisa kusoo jirnay muddo bil ku dhawaada iyadoo ay gashay maskax iyo maal iyo muruq intaba halka ugu sareeyana iyo hamiga laga leeyahayna waxa weeye waa mideynta dhalinyarada maxamed ibraahim ama reer maxamuud waxaan ognahay inay baahsanaan badan inagu jirto waxaan ugu talagalay dhalinta reer maxamuud ee ku nool gobolka mudug inay sida dadka kale oo ummadaha kale ay u wada tashadaan every time inaan iskugu nimaadno kagana tashadno aayaheenna iyo mustaqbalkeenna fog iyo midka dhowba taasaa waxay nagu kaliftay inaan dhalinta iskugu yeerno hadafka aan u kulminayna aan u sheegno hadafka aan u kulminay waxaa weeye innagu awalba midowgeennu wuu jiray laakiin intaan oo qof hadda meesha fadhida haddii la idhaa xisaabi 7 ama 8 qof baan ka garanayaa intaan oo qof oo aqoon-yahan ah habeen dhaweyto waxaan dabcay inaan tiro koobno dadka 70 markaan marayno jaamacada dhameeyey baa gacanta lagu daashay haddana iskama warqabaan ismana yaqaanaan magaaladan bay wada joogaan waxaan ugu talagalnay shirkan in aayaheenna kaga tashanno waxa inaga maqanna aan isweydiinno meesha aan u soconay mustaqbalkeennana aan isweydiinno guddoon aan ku wada midaysannahay oo dhalinta hogaamiya oo meel walba oo wanaagsan u horkaca oo masiirkooda inaan samaysano waa waxay naga maqnaa ilaahay baa ina sunnasiiyay subxaanahu wa tacaala marka waxaan leeyahay awal baa midowgeennu hore u jiray oo waxaan nahay dad isjecel oo walaala ah oo ehela laakiinse waxaa kala maqnaa quwaddeenna inaan isu keenno maanta quwaddeenni baan isu keennay waxaan rabnaa haddaan quwaddeenna isu keennay inaan masiirkeenna iyo aayaheenna aan ka tashanno dhalinyaranimo meesha isugu yimid dhammaan biyihii maxamed ibraahimna meesha isugu yimid waxaynu ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala qayb qaato shirweynaha aanan filaayo inuusan noqonin shirkii ugu dambeeyey in badan baan usoo halganay aad iyo aad inaan midnimada maxamed ibraahim ka talino aanan isku midowno waan idinkaga mahad celinayaa dhalinyarada waxbaratay cuqaasha odayaasha wasiirada wasiir ku-xigeenada cilal dad hore noo soo hayay iyo dad hadda noo hayaba horta waa idin wada salaamayaa dhammaantiin qof kastaba waxaa ku salaamayaa miiqaamka uu leeyahay oo sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh waxaan rajaynayaa shirkaan inuusan noqon shirka ugu dambeeyey oo ugu gogol xaaraya shirweynaha maxamed ibraahim ay isugu imaan doonaan insha allah iyo midnimada maxamed ibraahim
horta marka ugu horeysa waxaa idin leeyahay ciid mubaarak baadi layga beeraay laba ciidood baad isku darsateen ciidul adxaa ciidda carafo iyo waxaad isku darsateen ciiddii ahayd kowdii agas waa maalintii la aas-aasay baafooda nagu soo hayso christmas waa maalintii aas-aaska maamul goboleedka Puntland waxaa idin leeyahay happy birthday to you too guys waan ku faraxsanahay inaad laba ciidood isku hesheen aad baad u nasiib badan tihiin maantayto waxaan leeyahay dhalinyarada meesha ka fadhida horta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iska leh xukunka ilaahay aynu ka cabsano ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisana aynu isxasuusino markasta waxaa idin leeyahay horay u socda waxaa loo baahan yahay dhalinyarooy inaad ka talisaan midnimadiina dhalinyarooy inaad isku xirnaataan in waa lagama maarmaan dhalinyarada maxamuud ibraahim cuqaasha maxamuud ibraahim isimada maxamuud ibraahim xildhibaanada maxamuud ibraahim wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada maxamuud ibraahim intuba inay isku xirnaadaan shimbir garable iyo wax ma garato haddiinan isku xirnaanin oo kiina doqonka ah iyo kiina fiican iyo kiina wanaagsan iyo kiina aan waxba qabanayn iyo kiina gaasaysan iyo kiina daragsan kiina isku wadanin cid idin wadanayso cid idin rabtaan ma jirto waxaan ku faraxsanahay maantayto inaad isku timaadeen shirkankana uu noqdo shir ka mira dhaliya hamigii iyo magdii aynu u lahayn waan ku faraxsanahay dee waan wada salaamayaa wixii aan dhihi lahaaba idinkaas tiraahdeen waan idin salaamayaa salaan sharaf iyo qiimo iyo qaayo leh anaa uga guulaysanaya ama uga faa'iidaysanaya 3 daqiiqo aad isiiseen horay u socdo marka koowaad muddo ku dhowaad 20 sano ah oo aan gaalkacyo ama gobolka mudug taagnaa weli ima soo marin dhalinyaro aqoon-yahanaa oo wiilal iyo gabdhaa oo gartay inay maanta ka hadlaan ama u diyaar garoobaan mustaqbalka aayahooda iyada farxad weyniya Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg waa ceeb sheeg awalan horta nin kasta oo dhalinyaro ah oo qalbigiisu nadiif yahay oo maxamuud ibraahim aniga taleefankayga iyo xafiiskayga iyo nafsadeeda way u furantay wiil iyo gabar xilli alla xilligay rabaan waxay rabaan waxaan diyaar u ahay ilaahay hortii aan la tegayaa qiyaamana inaan anoon idin kala jeclayn oo maxamuud ibraahim meeshaad ii dirsataan iyo waxaad iga codsataan aan idinla qabto dardaaranka idin sideen wuxuu yahay maantay meesha aan joogno waxaa ka talisa xukuumad Puntland oo aan ka mid ahay dhalinyarooy waa la maalaa siyaasad lagu maalaa waxaa lagu maalaa si degan oo qabow oo macaan inaad xuquuqda aad leedihiin uga raadsataan adinka iyo dadka Puntland degan oo dhan isku xaquuq baad haweenku waa laf dhabarta bulshada waana udubka ay ku taagan yihiin ummad waliba oo koonka joogta marka laga yimaado inay haweenku yihiin indhaha iyo ilayska u ifa bulsho walba bulsho ahaan inagu haddaan nahay maxamuud ibraahim dabcan daa wiilasha la kafta waa in ka karti badanaa sida la idinku xanto waxaan u malaynayaa maanta intaasoo gabdhood iyo intaasoo hooyooyin oo dhalay iyo intaasoo hooyooyin oo ka sii badan oo maqan haddii ay isku duubni sameeyaan inay maxamuud ibraahim u guurayaan meel barwaaqa oo dhammaanteen aan ku ilgoosino inteennaan halkaan iskugu nimid haddii aan damacno in aan beddelno magaalada gaalkacyo oo dhan waxbaan ka beddeli karnaa laakiin hadda waxaan iskugu nimid waa inaan beel yar wax ka beddelna wey yaa beesha maxamuud ibraahim baa iskugu nimid waxaan rabaa fakarkeenna inuu intaa ka sii weynaado waxaad arkaysaa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka suuratulkaafi waad aragteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa innahum fityatun aamanuu birabbihim ilahay subxana saasuu tilmaamaya dowrka ay ku leedaha waxaa weeye tiirka ummaddu ay ku taagan tahay wey oday kasta oo dagaal ooga ah ama dawlad kasta oo dagaal oogayso waxa ay ku tiirsan tahay oo dagaalka u galo
waa dhallinyaro saasa waxaa la yidhaha waa tiirka koowaad oo laga fiiriyo. Aan ugu faraxsanahay munaasabadan wixii anigu aan ka hadli lahaana waxaa ka hadlay Maxamed Suldaan waxa weeye waa midnimada ayay ka bilaabataa wax wada qabsiga iyo wada tashiga iyo wax walba ka soo baxaan. waxaan idin rajaynayaa in aad qaadataan midaas oo maskaxda gashataan. guddiga ka shaqeyna waxaan 7 qof 7deena qofkan magaciisa abiis ma yaqaan madaasanasan taas waashan quruxda badan waxa ka soo shaqeeya 7 qof aan isaqoon waxa isku yimaadeen kaliya waa magaca waxa inta isku keenay in kala baqana ugu yimaadeen waxa isku keenay waa magaca dadnimadaas markaan waxaan leeyahay horta waad mahadsantihiin shida sharafta leh noo soo qayb gashaan noo timaadeen taymkiina waqtiga noo siiseen waxaan jecel lahay tan imaadko maahay mar walba inuu noo noqdo wadadii ugu horeysay ku mar lahayn weeye bishruweynaha birisbax insha Allah wixii ka dambeeya la qaban doono noqo wadaxaal qof walbana ha ogaado meesha uu joogo inuu yahay hal magac uu leeyahay anaga oo dhaxeeya markii laga niyaado nasabka iyo magaca waalidka laakiin hal magac baa leenahay kulligeen waa reer Maxamuud dhalinyaro waxa wax qaban kara waa dhalinyarada waanaka wax ka bedeli karna waanaka anagu hadaan noqono dad isku duuban hal mowqif hal dhalinyaro hal hoggaan hal nidaam haddaan yahay waxaan aaminsanahay dadkana ka hormarayno sida ogeed waxaan rabaa naftaytiinaba marka hore inaan isku duubnaadno isku mid aan noqono madasha maanta isku nimid aysan noqonaad kaliya maahan mar walba isku yimaado oo kulamada ay bataan maamulka insha Allah la sameyn doono inuu Ilaahay mana la shaqeysaan kaliya aniga waxa idinku bogaadinayaa isku imaanshaheena halkan aan iskugu nimid inuu soo noqonin wax xunba ah oo biri ka maalin aan waxba laga soo qaadin intii la iskugu yimaado qodobo ka soo baxaan la iskugu yimaado haddana aan la meermarin marar badan baan gruubyo galay aniga oo waliir waxba la wada qabsanayaa meel baa la gaarayaa haddana mid walbaba waqti badan uu sii jiray nasiib darro marka waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqdo mid mira dhala oo annaga iska daajiilka annaga iska daayay jiil shanaad iyo lixaad gaara marka annaga maxaan ka rabaa dhalinyarada halkaan dhalinyarada joogta reer Maxamuud oo halkaan timid door intee leeg baan ku qaadan karnaa siyaasadda ku yeelan karnaa dad badan waxay isdhahayaan siyaasaddu inay waa kulusha waa qaraar tahay dad badan baa isku nacayaa wax walba way xumaanaysaa inaan iska daynaa qurux badnaan lahay ma iska dayn mayno waxaan inta iska daynay dheefteeda waa haynaa wax badan baa waxaan waxa way waa iska daynaynaa xoolaana ka raacanayna si qabow baan u galaynaa meelana waa ka dhabacaynaa wixii dhaanta way iska soo baxdo maanta in halkaan iskugu nimaano oo doorkeena muujino awoodda aan leenahay maanta waxa weeye wax sawir badan baa soo baxaya marka dhalinyarada la arko waxa soo baxaya doorka iyo quwadda dhalinyaradu ay leedahay dhalinyarada Maxamuud ay leeyihiin ee gobolka ku leeyihiin Puntland ku leeyihiin Soomaaliya ay ku leeyihiin ayadoo qayb kamid ah hadda wax yar la casuumay oo haaf kamid ah waan ku dhaweyn xataa 3 meelood haaf la casuumay bay atana waxa weeye waxa muuqanaysa awoodda iyo cudurada ay leeyihiin ayagoo marka dadaalkooda iyo awoodooda muujiyay oo dhanka siyaasadda waxa noo noqonaysaa xoog iyo quwad axsaabtii in lagu biiro waxa waa door noo muhiim ah anaga asxaab kala furay haddii Soomaaliya ahaan lahayd iyo Puntland ahaan lahayd intaba dhalinyarada waxa la door fircoon ay ka qaataan oo asxaabta ku biiraan oo fircoonaan waxa weeye haddii heer federaal iyo waxa weeye ahaan lahayd heer maamul goboleed idan maanta waxaan hortaala labo hortaala ayaa waxay tahay inaan midnimo muujino inaan isku xirnaano inaan noqono dad hoggaan leh isla markaasna meel kasta iyo xilli kasta ay u baahdaan hawl inay qabsadaan ka mid keeni kara taas waxaa noo suurtagelin kara waa inaan yeelanaa hoggaan aan ku midaysannahay isla markaasna noo suurtagelin kara meel kasta iyo wax kasta oo annaga aan doonayno sidaa daraaddeed annaga dhalinyaro ahaan iyo bulsho ahaan intaba ayaa waxaa xil naga saaran yahay bulshadeenna arrintan ka hadlaayo arrin caadiya maaha waa arrin diiniya waaye waa andir cashiirataka alaqrabiin baa lagu yahay markaa wax bilaabaysa kow bulshadaada ka bilow ehelkaa ka bilow dadkaa ka bilow idan markaan annagu aan noqonno dad isku filan dad hoggaan midaysan leh dad aayahooda ka tashan kara ayaan wax la qaybsan karnaa kayrkeen idan waxaan u baahannahay marka si ay taa u suurto gasho waxaan u baahannahay
dhalinyaro ahaan iyo aqoon-yahan ahaanba inaan kala qoqoobka iyo iisheeg iyo waxyaabahana kala fogeyn kara inaan meesha ka saarno oo aan noqonno dad isku duuban hal hadaf leh reer maxamuud wax ka sugayay inaan ku qanacno waa dabaalnimo hadda idan waxaan u baahannahay marka maadaama anagu aan nala kala aqoon oo marka meel merisid reer hebel lagu yaqaano inaad danta reerkaaga aad ka hesho qabyaalad maaha waa arrin diiniya saa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan anagu hankeenna uusan ka sokomarin reer maxamuud bal uu kor u socdo reer maxamuud majeerteen ilaa daarood oo dhan aan hogaamino ilaa heer soomaaliya dhallinyaradeeda aan hogaamino sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay anagu inaan noqonno dad hadaf leh hadafkaasna waxaa keeni kara oo miro dhal ka dhigi kara waa idinka qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga dhallinyarada reer maxamuud beesha reer maxamuud qodobka koowaad shirku wuxuu adkeeyey midnimada iyo wadajirka dhallinyarada beesha reer maxamuud qodobka labaad shirku wuxuu isku raacay oo la doortay hoggaan iyo guddi hagee dhalinta kana shaqeeya aayahooda dhow iyo kan fogba qodobka saddexaad shirku wuxuu kaloo isla gartay in la raadiyo xaqa beesha uga maqan dowladda federaalka soomaaliya sida labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda dowladda puntland hadday ahaan lahayd heer maamul gobol iyo heer degmaba qodobka afaraad dhallinyaradu waxay isla meel dhigeen inay isku xidhaan qaybaha kala duwan ee beesha sida odayaasha haweenka aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo culimmada qodobka shanaad dhallinyaradu waxay ku heshiiyeen in la qabto kulan weyne ay isugu imaanayaan qaybaha kala duwan ee beeshu ka kooban tahay oo laga hadlayo masiirka beesha sida arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda ku wajahan dowladda puntland iyo tan heer federaal xilliga uu dhacayo shirku waxaa ilaamin doona guddiga la doortay qodobka lixaad dhallinyaradu waxay isku raaceen in lala kulmo dhallinyarada kale ee gobolka si wadajirka looga shaqeeyo arrimaha naga dhexeeya ee guud ahaan dhalinta gobolka iyo guud ahaan dhalinta puntland qodobka toddobaad shirku wuxuu xoojinayaa nidaamka dowladnimo ee lagu doonayo in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah taas oo aan u aragno inay horseedayso hufnaan iyo horumar soomaaliyeed loogana horumarayo nidaamkii cadaalad darada iyo dulmiga ku dhisnaa ee 4.5 qodobka sideedaad shirku wuxuu ugu mahad celiyey dhallinyarada reer maxamuud ee isku hawshay dadaalkana gelisay shirkan wadatashiga wuxuuna u rajaynayaa guul iyo horumar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saacin karo ushimihii sharwado shibna